السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة وسلامنتين ملكستو دنودا فيدا كجوكتان كسو دوادا برامج كينا عيارها انت بدن برامج كان وحان أبدي كسين دونا صاحبة ساعدية لصودا في ورارك سوق وقدام بيصدو كلا عيارها وحياوها كعصبة برامج كان كقبل قدون تنصدو كلا وحان يدين كما دعلنا صاحبة قيمها بن ساعدية وقدام بإن كبل دوات تنقف يعجنا لك صوت بيرت آذا أبو ما سنتين جنا لكن واجنا كلا يرد صاحبة سبسكرايب نصار سدو كلا موقعك لايك نصار تاسنا نقول رجالي كومنت qurux badan noo soo qoran aan ku bilaawno qodobkeena kuwa saaxiibada qiimaha badan Barcelona ayaa soo gabagabeyn doonta saxiixa Robert Lewandowski sida hadda saaxiibada inta badan majaladaha ay soo qorayaan sida hadda shaaca laga qaaday saaxiibada qiimaha badan wiigan ku jirno kooxda kubadda cagta Barcelona waxay dalab konton milyan gaarsiin doontaa kooxda kubadda cagta Bayern Munich sidoo kale waxa la leeyahay wararka waxa intaas ku sii darayaan Robert Lewandowski maanta oo Sabtida oo galanka dam wuxuu soo gaari doona dhankaasiyo gudaha Barcelona ninkan iyo saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Barca hore heshiiska shakhsi oo la gaaray sidoo kale 3 sano oo contract ayuu Barcelona ka qaadan doona ogaada Robert Lewandowski wuxuu iska diiday kooxaha Chelsea sidoo kale PSG sidoo kale ninkan wadadii Rafinha oo marayo mari doona sida daraaddeed haddaba official Barcelona waxay gacanta ku soo dhigi doontaa saacadaha nagu soo food leh laacibka lagu magacaabo Robert Lewandowski sidoo hadda Fabrizio Romano oo shacabka qaasada daraaddeed maanta galinka damay la rajayn doona ninka lagu magacaabo Robert inuu soo gaar dhankaasi gudaha Barca qodobada kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah markaan waxaan war farxad leh u haynaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Man United maadaama hadda shacab laga qaaday ninka lagu magacaabo Lisandro Martinez inuu ku soo wajahay dhankaasi magaalada Manchester sidoo kale asaga sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan agentigiisa ama saaxiibada wakiilkiisa ayaa diyaarad private soo qaateen sidoo kale maanta ay la rajayn doonaan gudaha dhankaasi Man United gudaha dhankaasi Manchester inay soo gaaraan sida daraaddeed ninkan ogaada Ajax kooxda kubadda cagta Man United waxay kaga soo qaatay doon lacagad gaaraya 55 milyan sidoo kale ninkan wuxuu qaadan doonaa heshiis gaaraya 5 sano oo qalinka ku doogo doona sida daraaddeed maanta galinka dambe ayaa la rajayn doonaa Martinez inuu soo gaari doono dhankaasi gudaha Manchester qodobada kale official kan soo qaadan karno waxa kamid ah saaxiibada qiimaha badan oo official kooxda ninka lagu magacaabo Federico Bernardeschi oo saaxiibada qiimaha badan Italy u dhashay ninkan wuxuu ku biiray kooxda loo yaqaan Toronto FC heshiis gaaraya June 2026 ayuu qalinka ku doogay sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan asaga waxa halkaas kaga soo horay laacibka Italy iskala dhisin oo ay kala laacibka saaxiibada qiimaha badan xulka Azures kala tirsan waa ninka lagu magacaabo Leonardo Inzaghi halkaas ku sugan sida daraaddeed hadda official ninka lagu magacaabo Federico wuxuu ku biiray kooxda loo yaqaan Toronto FC sida hadda shaaca laga qaaday ciwaanada kana soo qaadan karno waxa kamid ah laacibka lagu magacaabo Bukayo Saka ayaa saaxiibada qiimaha badan ogolaad in heshiiskiisa uu dheereeyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal oo ay mustaqbalka u hibeeyay sida hadda shaaca laga qaaday sidoo kale Arsenal iyo sidoo kale ninkan wakiilkiisana wada xaajood ay wada socdo sidoo kale Saka waxa la sheegay inuu ku faraxsan yahay projectiga Arsenal hadda ay wada sidaan ka warqabna saacadii la soo dhaafay ninka lagu magacaabo Usman Dembele wuxuu heshiis qalinka ku dooday heshiis gaaraya June 2024 sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan hadda waxa leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona waxay ninka madaxiisa dul dhigtay adoon lacageed gaaraya 100 milyan ay dul dhigtay sida daraaddeed ninka lagu magacaabo Usman Dembele 2 sano lagu soo foodlay wuxuu ku sugnaan doona dhankaasi gudaha Barca sidoo kale waxyaabahan soo qaadan karno waxa kamid saacadii ugu dambeeyay saaxiibada qiimaha badan waxa hadlay madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barca ninka lagu magacaabo Laporte waxyaabo badan ay saaxiibada qiimaha badan faaqidaad ku sameeyay wax ugu weyn kan ka hadlo wax kala maana oo mustaqbalka ninka lagu magacaabo Frank de Jong sidoo kale wuxuu yiri asagoo hadlay ma jirto cid nagu qasbi karto in Frank de Jong aan iibino sidoo kale anagana cadaadis ma saareen ciyaaryahanka sida daraaddeed wuxuu yiri Frank mustaqbalkiisa waxa go'aan ku gaari doona macalinka kooxda ninka lagu magacaabo Xavi sida hadda shaaca laga qaaday saacadii ugu dambeeyay saaxiibada qiimaha badan majaladaha inta badan waxay qorayaan kooxda kubadda cagta Barcelona waxay cadaadis saaraysaa laacibkan Frank de Jong maadaama la leeyahay ninkan mushaar buuran iyo kooxda ka qaata sidoo kale kooxdu waxay diyaar u tahay inay ka taqalusto laanada kala saaxiibada qiimaha badan soo qaadan karno waxa kamid ah PSG ayaa diyaar ah laacibka lagu magacaabo Lionel Messi inay cishata sidoo kale heshiiskiisa ninkan hal sano ay dheeriya ku dartay saaxiibada qiimaha badan sidaan ka warqabna Leo kooxda PSG heshiiskiisa wuxuu ku eegay June 2023 sidoo kale one season ayaa kaaray sida daraaddeed kooxda kubadda cagta PSG waxay ninka lagu magacaabo Lionel Messi saaxiibada qiimaha badan miis u saartay heshiis hal sano dheer inuu ku daray heshiiskiisa sidoo kale June 2024 uu gaarsiin laakiin waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan Lionel Messi hadda diyaar ma waxyaabaha mustaqbalkiisa ku saabsan inuu ka hadlo sidoo kale ninkan wuxuu diiradda saari doonaa Lionel Messi saaxiibada qiimaha badan wuxuu diiradda saari doonaa kaliya inuu xulkiisa kubadda cagta xulkiisa Argentina koobka
loo yaqaan World Cup-ka sanadkan dabayaaqadiisa dhankaasi saaxiibada Qatar lagu qaban doono inuu kala qayb qaato sidoo kale koobkaas markuu soo gabagabay ka bacdi ayuu saaxiibada qiimaha badan ninkan arrimaha mustaqbalkiisa u soo jeesan doona sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan maalmihii ugu dambeeyna waxaa la qorayaa ninka lagu magacaabo Lionel Messi inuu ku laaban doono dhankaasi baarka halka sana qandaraaskiisa ka dhiman hadduu soo dhameys laakiin weli warkaas saaxiibada qiimaha badan weli si official laguma dhawaaqin laakiin ninkan hadda Lionel Messi uu hadlay sidoo kale markuu koobka adduunka ka soo laabta kaliya ayuu mustaqbalkiisa ka hadli doona sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan waxyaabaha kala soo kordhana barnaamijyadeena dambe ayaa ku ogaan doontaan ku maasantiin daawasho adaateen muuqaalkan hadday tahay markii kugu hore soo boqonay channelkeena subscribe noo saar sidoo kale lowena muuqaalka like noo saarto aragtida comment noo qareeb haddaa kamid tahay saaxiibada hore noola jooga muuqaalka share si saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo bira intaan barnaamijka mid ku kulmayno amaan Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.